magacaygu waa Mubaarak Maxamed Saleebaan waxaan ku magac dheerahay Mubaarak Haadi waxaan ka mid ahay qalimaalka Soomaalida buugayga ugu dambeeyay waxaa la yiraahdaa Garaadso intaadan kursan tani waa sheekadayda waxaan ku dhashay magaalada Riyaad oo anigoo yar laga soo tarxiilay kadibna waxaan nimid magaalada Xamar caasimadda Soomaaliya anigoo 3 sano meelaha jira ay u qixi dhacay kadibna waxaan galnay Kenya halkaas oo 16 sano aan qaxooti ku noolaa adigu muddo 15 sano aan idhaahdo xaggaasan malcaamadii iskuulkii iyo secondarygii baan ku dhigtay xeryaha qaxootiga ee Kenya waxaan maleynayaa xero qaxooti Kenya ku taalo aan gelin waa yar tahay 16 sano ugu dambeeyay waxaan ku noolaa dalka Mareykanka oo aan waxbarashadeedii xagga ka sii watay anigoo bartay cilmiga bulshada iyo cilmi nafsiga weligay waan jeclaa runtii wax gudbinta iyo dadkeenan wax la wadaago hobby aan lahaabo ah tan iyo yaraanteedii waxaan xasuustaa anigoo yaro tooshashkii caaga ah bariga hore welina jiraan warmaaye anigoo dhiiqa intaan dhoobo intaan kuuso mikrofon u sameeya dadna caangir iyo daasad caana koosta intaan ku xidhay geedaha saara oo la hadla geedaha ayaan xasuustaa 7 jirkay iyo 6 jirkay meelaha laakiin inta dambe qoraalka social media markii yimi platformka Facebook oo kale 2010kii meelaha ayaan bilaabay inaan qoraalo yar oo kooban aan soo geliyo dadana dadkii dhiirigelintoodii iyo qoraalkaygii inuu wax tarayo noloshooda dadka wax ku soo kordhinayo markii aan arkay baan bilaabay inaan qoro maqaalo dadana maqaaladu waxay u gudbisay inaan buug aan qori karayo walay aad ugu wanaagsan xagga sheekooyinka xagga dhabka hadalkan jeclahay inta badan sheekooyinka fictionka ama riwaayaadka dadka qoramay waa jeclahay waan akhristaa laakiin buugtan inta badan practicalka ee qofka noloshiisa wax ku soo kordhinaya ee xikmadda guuda ayaan inta badan wax ka qora maqaalkii ugu horeeyay Garaasintaada Guursan buu ahaa 2011kii ayaan qoray 10 sano kadibna waxaa soo baxay buugga Garaasintaada Guursan oo markaa muddada dheer markaa qoraaladii ugu farax badnaa runtii dadka aadka u saameeyay waxaan astaa website wasaaradda kamida oo bil gudaheeda ay waqtiga 2011kii ay 35,000 oo qof ay click siiyeen marka kuwii ugu saameynta badnaa bay kamid ahaayeen iyo kuwa wadaniyadda iyo Soomaalinimada iyo isirka iyo dhaqanka iyo suugaanta ka warramaya buug wuxuu ka kooban yahay 13 cutub buu ka kooban yahay 13 chapter uu ka kooban yahay dhamaantood way xiiso gelinayaan oo de wax fara badan oo buugga gali kari lahaa oo ka saaray baa jira si aan buug yar oo kooban oo la wada akhrin karayo oo si uu noqdo laakiin waxaan isleeyahay maqaal qaybaha aan isleeyahay aadka muhiimka waa aniga qoseeyaan jeclahay cid walba inay ka faa'iideysto waxa kamid ah hadafkaas ah qofku hasaawiisa inuu hadafaysan yahay oo aan iska noqon sidan caadiga ah deetana dhowna mashaakil fara badan gurigii la aado aan marka horeba la iska soo xog wareysan waxa kamid ah maraaxisha guurku maro qofku inuu wax ka sii ogaado guurku marxaladuhu maraa khatarteeda qaarkood leh ay tahay inuu qof ka gudbo haddaanu sii ogeyn marxaladda hirdanka oo kale haddaanu sii ogeyn waxaa dhici karaysa in ay furitaanka halkaa dhaco waana 70% furitaanka waqtiga u dhaco weeyaan oo 2 sano 3 sano ugu horeysa marka waa cutubiyaan is leeyahay dadku wax badan bay ku soo kordhinayaan waxaa kamid ah kala duwanaanta ragga iyo dumarka
oo halkii isfahanka uu ka imanaya marka cutubiyadaasaan ka xusi karayaa cutubiyadaan isleeyahay aad baan isleeyahay bulshada inay u akhrisan doonayaan cutubka isbaro intaadan baran waa cutubiyada runtii ugu xiisaha badan aniguna aad kan u jeclahay nafbarashadu waa wax ballaaran weeyaan halka marka ay joogto qofku noloshiisa kuma soo biirin karayo qofka ku habboon haddaanu isagu naftiisa aanu aqoon u lahayn baahiyaa uu leeyahay iimaha uu leeyahay tahay inay qofkan noloshiisa kusoo biirinayo inay ka duwanaado waa isbuuxin baa imanaysa haddii intaada adigu aad leedahay in mid la midow qofkan aad noloshaada kusoo biirinayso uu leeyahay caqabad bay isku keen noqonaysaa tusaale kale inaad carab badan tahay qofkan uu carab baday ama kulushahay isna uu kulul yahay caqabad bay isku noqonaysaa ka iimaaga inaad ogaato himilooyinkaaga inaad ogaato si qofku baritaalayo in caqabad kugu noqon biri ka maalin aanay dee noloshaada aad kusoo biirin qofkan kontonka sano soo socota waa qof aad isla noolaanaysaan iska soo kacaysaan si walbana aad isku saameynaysaan waxaa ka mid a qiyamka doonaysa inaad la noolaato wax adiga muhiim ku ah baa jira qofkana wax muhiim u ah baa jira waxaa labadiina muhiimkiiya wax isku soo dhawaan karaya ma yihiin mise caqabada isku noqonaya marka nafbarashadu qofku haddaanu naftiisa aqoon ma dooran karayo qofka noloshiisa ku habboon aad bay marka muhiim u tahay cutubka qofku inuu akhriyo runtii waxaan isleeyahay xiisaha waxa buugga u sameeyey waxa weeye dhowr arrimoodba buugga horta ciwaankiisu waa ciwaan soo jiidasho leh qayb buu runtii ka yahay garaasiintaada guursan laakiin macno ma uu sameeyeen haddii aanay ooli lahayn baahida maanta aanay jirteen waa xilli furitaankii aad u fara badanayo noloshii ay ballaaratay guurka sidii laisu guursanayay sida dan la isku furayo almost oo isku dhadhowda waxaa laga yaabaa 10 qof ay isguursadeen 4 ama 5 ka mid inay isfuraan marka mashaakil wuxuu ku soo beegmay buugu marka ciwaankiisa laga tago wuxuu ku soo beegmay waqti duruuf adag maanta ay jirto oo guriyii ay sii burburayaan cid walba ay dareemi karayso mushkilada inay taalo xalna aan loo hayn wax ka qoran aanay jirin marka taasaan isleeyahay ayaa keeni karaysa xiisaha iyo dhalinyarada iyo bulshadeena oo badan 70% inay dhalinyaro hadduun gurdoona ama hadduun reer yeesho weli baqdin ku jira iyo qaar soo reer ka soo burbureenoo baqdin ay hayso marka cid walba wuxuu doonayaa buugiino inuu xukalo waxaan isleeyahayna inay ka faa'iido doonaan baan rajaynaya والله buug horta waa run doodo badan buu dhaliyay ka mid tahay dadka qaar waxay u arkaan inuu qofka uu leeyahay war da iska sii gaaro gradsigii waxa loo da baa lagu xiray buug da kuma xidhi lama laha buug waxa weeye aqoonta nolosha kaasi horeysa guurka waa aqoon waa mas'uuliyad qof ka aragti duwan ka hab dhaqan duwan ka hab nololeed duwan biyadu ku soo barbaaray biyada ku soo barbaarteen ay kala duwan tahay guriga ku soo barbaaray guri kala himilooyin duwan kala qiim duwan meel isugu imanaysa oo waliba la biyo dhadig la sii kala yahay oo qaab hadalka lagu kala duwan yahay oo qaab fikirka lagu kala duwan yahay oo qaab mushkilad xalinta lagu kala duwan yahay oo dareen cabirisa lagu kala wax badan lagu kala duwan yahay oo baahiyo lagu kala duwan yahay yatana qofka nolosha aad galayso 8 saacadood aad ka shaqeynaysaa dhowr iyo 10 sano waxbarashada u soo baratay tan buug iyo laba iyo koors ka akhriyo aqoonayso inta aadan aqal galin muhiimadu waa halka laakiin dadku inta wada moodeen ku xidhayaan da'da 60 jir haduu yahay qofka iyo 15 jir haduu yahay labaduba wuxuu leeyahay nolosha aqoonta wax guurka u socoto wax ka sii ogow xitaa ka reerka iskale buug mid kale laba qaybood buu ka kooban yahay qaybna waxaan kula hadlayaa waa hagaa guurdoonka qaybna waxa weeye waa wehelka lamaana marka xitaa qofka guurdoonka labada qaybood buu ka faa'iideysanayaa qofkii isku haboonayna uu dooran karaya nolosha markay is doortaan sidii nolosha u sii wadaagi lahaayeen ay u wada kobci lahaayeen u wada kor lahaayeen qofku ka caawinaya kan hadda reer kalena uu ka caawinaya marka buugda lama xidhiidha aqoon buu la xidhiidha dhalinyarada waxaa leeyahay kuma qanci karayno noloshii waalidkeen ku soo barbaareen way ka duwan tahay nolosha maanta ku jirno
nolosha xawli bay ku socotaa xawaaray ku socotaa isbedelo badan baa socda optionno fara badan baa gabdhihii maanta ay haystaan wiilashana sidoo kale wixii shalay sidii nolosha yar ee shalay dadka laisku hayey laisku ilaalinayay ma jirto maanta waxaad u baahan tahay qof kula aragtiya kula himilooyina kula qiyama inaad doorato kaana iimadoon inaad isdoorataan deetana aad kortaan si joogta inaad u kortaan waayo shalay mashaakishu way yaraayeen reeruhu isku qabanayeen oo oday yar ayaa geli jiray oo dhihi jiray war afar faataxa qaato gurigiinii ku laabta gabdhahana waxaa dhici karayste taabuu fara badanna wuu jirayoo gabadha haddii la yidhaahdo hana ceebeen baa la odhan jiray gurigaaga iska joog ninkuna seediyadii iyo soddogii buu ka xishoo jiray maanta laakiin waxaa ma jirto mashaakisha idinka hor imanaya guurka waxaad u baahan tihiin inaad xalisaan inaad markaa buuggan iyo buugta lamidka iyo koorsooyinka lamidka midna odhanaya buuggan kaliya akhriya laakiin buuggan waa bilow laakiin waxaad u baahan tihiin inaad nolosha wax ka ogaataan aqoon yeelataan si guryuhuna inagu wanaagsanaadaan bulsho caafimaad qabta ubad caafimaad qabana bulshada aan kusoo korino insha allah